iyadoo Jamhuuriyadda Somaliland iyo waliba guud ahaanba deegaanada ay Soomaalidu degto ku soo badanayaan ganacsiyada online-ka ah ee dhalinyarta ama fakariinta ay hirgelinayaan misana ay bulshadooda ugu adeegayaan hanaan casriyeysan oo ka fudud ganacsiyadii waayadii hore. haddaba Xafse Kayse Maxamed oo ka mid ah dhalinyarta mufakariinta ee ku dhaqan caasimadda Somaliland ee Hargeysa isla markaasna ah maamulaha qaybta online-ka ee shirkadda Somclair oo ka mid ah shirkadaha hormuudka ka ah ganacsiyada kala duwan ee online-ka ah ayaa waxa ay ka warbixisay sida ay u shaqeeyaan iyo waliba hanaanka ganacsiga online-ka ee maamulka ka tahay iyadoo mid isu dul taagtay adeegyada ay u hayaan bulshada Somaliland iyo waliba guud ahaanba deegaanada ay Soomaalidu degto. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xafse Kayse Maxamed waxaan mas'uul ka ahay qaybta online marketka ee Somclair online market waxaanu u shaqeynaa qaybo kala duwan oo ay ka mid tahay inaanu alaabtii soo xaysiino page aanu leenahay ku soo xaysiino inaanu dadkii u soo bandhigno waxyaabihii aanu haynay oo inta badan ay u badan tahay noocyada ay bulshadeenu aad ka xiiseeyaan ama waxyaabaha lagu isticmaalka badan yahay inaanu bulshada gaarsiino. sidoo kale waxyaabaha online ahaan ama Somclair ahaan aan ku shaqeyno waxa ka mid ah inaan bulshadii meel kasta ay joogto aan gaarsiin karno alaabtii u baahnaayeen inaan ay ugu tagi karaan halka ay joogaan isla markaana ay heli karaan wax kasto ay soo dalbadaan. alaabaha bulshada soo bandhigna waxa ka mid ah sida dharka electronicska waxyaabaha loo isticmaalo home decorationka ama guryaha loo isticmaalo furniture-ki waxa kale oo aan ka maqnayn iibinta alaabta iyo geynta bulshooyinka naga soo dalbaday ee u baahan ee kala jooga daafaha caalamka ama aan iraahdo dhulka Afrika ay degto Soomaaliya Afrika Kenya Nairobi Hargeysa Burco gobolada Somaliland iyo gobolada Soomaaliya iyo gobolada kale ee ama wadamada aynu jaarka nahay waan gaarsiinaa sida Ethiopia oo kale. waxyaabaha kale noo dheer waxa ka mid ah inaan qofkii alaab doonaya aan u dalabno oo qofkii noo imaado dalabkiisa oo dharkiisa noo dhiibto anaguna aan u fududeyno oo qofkii China uga soo qaadno Hindiya uga soo qaadno Dubai uga soo qaadno Hindi maxaa la yiraahdaa meelaha ay alaabtaasi taale available ku tahay oo dhan aan u fududeyno oo aan qofkii uga soo qaadno oo keeno. suuqa online-ku uu ka fudud yahay sidii ganacsiga hore si online wax laga dalbado gobolada dalkooda oo ka waran saameyn ku yeelanaya dhaqdhaqaaqina imika technology way isbedeshay waqtigiina uu isbedelay oo imika waxa la isticmaalayaa Facebook marka Facebook awal hore waqti baan naga lumi jiray malayacni oo aanan waxba aanan ka faa'iideynin laakiin imika waxaan fahmnay internetka iyo Facebooka inuu yahay waxyaabaha kaliya aad ku taajiri karto adigoo gurigaaga fadhiya adigoo xafiiskaaga jooga aad ku shaqaysanaysid. saameynta uu nagu leeyahayna waxay tahay mid positive oo ah inaanu ka helo benefit dadkiina aan u fududeynay alaabihii imika qofkii Burco joogay ee Hargeysa alaab soo doonanayay waxa ka baxay transportation oo gaarigu soo raacay waqtigu soo luminayay laakiin waa u fududeynay una soo qaraacaya alaabtaas u baahanahay alaabtii baan u qaadaynaa waan u diraynaa isagoo halkiisa joogta la garaacaya alaabtii baa loo geenayaa. example la saanada si online wax la soo dalbaday si degdegan oo loogu baahan yahay sidee u gaarsiinaa kale lascaanood marka alaabtana laga soo dalbado qofkuna soo yiraahdo alaabtaas u baahanahay tusaale ahaan waxaan sameeynaa inaan alaabtii qofkii uu rabay aan qaadno aan u geyno transportationada u baxa baabuurta u baxa Cereygaabo oo kale aan saarna alaabtii lascaanood oo kale aan saarna alaabtii marka qofkii waxaan ku qoranaa lambarkiisii iyo magaciisii hadhow tole xafiiskan markaan ka dirno oo xafiiskii Cereygaabo tago qofkii waa la qaraacay automatically xafiiskaasi alaabtaadii taala uu soo doonanaya halkaas ka qaadanaya. bulsho badan oo reer Somaliland imika si online ay wax ka soo dalbadaan maxay tahay fursadda ama mushaareynta halkan uga dirayso maadaama lagu jiro bil barakeysan oo Ramadaan horta fursad wanaagsan oo aad qaali ah haystaan waxyaabaha aan sameynay imika ciidkan oo kale aan sameynayna waxa kamid ah inaan sameynayno home delivery
oo qofka isagoo gurigiisa jooga haddii uu Hargeysa joogo aan ugu geyn karno haddii uu gobolada kale joogo oo kale aan maxay ahayd ugu geynino waxyaabaha aan haynay available-ka ay naga helayaan waxa kamid ah dharkii dadka waaweyn sida wiilal iyo gabdhaba ama dumar iyo ragba waxay kale naga heli karaan dharkii ciyaalka waxay naga heli karaan kabihii waxay naga heli karaan wax kasta oo ay u baahan yihiin waa available way naga helayaan macaamiisheeda waxaan ugu baaqaynaa inay ku xidhnaadaan bartaan internetka ku leenahay ama page Facebook-ga oo ah Samclair online market sidoo kale inay xafiiskayga nagu soo booqan karaan sidoo kale inay telefoonadayada soo wici karaan inay heli karaan alaabta ay u baahan yihiin inaan home delivery u sameynayno oo gurigooda aan ugu gelinay iyagoo jooga gacmo furan aan ku soo dhaweynayno dhamaantood aad baan u jecelahay waana u jecelahay dhamaantood inaan u adeegno oo aan u qancino bismillaah alxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah waxaan ku soo dhaweynaynaa dhammaan macaamiisha sharafta leh iyo dadweynaha ku nool Hargeysa iyo dhammaan meel kasta ay degto Soomaalidu inaan u hayno hab online ah oo ay wax ku iibsan karaan kuna heli karaan alaab tayo leh oo qurux badan looguna keeni karo sida ugu degdega badan anigu waxaan u qaabilsanahay qaybta online-ka soo dhaweynta iyo reception-ka macaamiishana soo dhaweeyo iyo haddii ay dadku badan yihiin inaan dadka wixii aan u sii qaban karo inta dad kale loo shaqeynaya aan u sii qabto marka shirkadan waxay ka shaqeynaysaa online fiican oo qofka sidiisii wixiisii oo aan ka kala dhantaanlayn oo si hawl kale loogu qabtay u heli karo dhammaan dadka waxaan leeyahay ku soo dhawaada shirkad loo baahnaa iyo online loo baahnaa oo ka duwan online-da magaalada ka shaqeeya si kastaba ahaatee shirkadda Samclair ayaa ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ku shaqeeya adeegyo badan oo ay ka mid tahay qaybta online-ka taas oo jaanis ballaaran u ah guud ahaanba dadka ku dhaqan deegaanada kala duwan ee ay Soomaalidu degto waa Maxamed Cabdi Cabdilaahi Maxamed Andar CNA TV magaalada Hargeysa.